bay ka dhacday CK gabadhii waa dilay CK gabadhii waa kala tageen CK gabadhii inuu furay u dhowday sida askale ma ku haystaa adi ma ku haystaa xaskis ma ku haystaa waxaad adduunka ugu xun waxaad adi hubin inaad sheegtid qofka bini aadanka waxa la rabaa markuu wax sheegayo ama uu dad wax u soo gudbinayo wuxuu isaga u og yahay xogtiisa inuu soo gudbiyo dadka qaarkood ayaa waxay leeyihiin CK xaaskiisii lacag ka haday bal ceebtaas fiirlah ku dhaashi dadka la ceebeysanayo fiirlah ku dhaashi assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wa salaam dhammaan asxaabtayda qaaliga meel kasta joogtiin soo dhawaada jibran fadada cusubta soo dhawaada hor jirna aad aad maastiin jalka daw soo jibran qofkii la hadlaana qofka ma musiiqaas jibran agaas soo dhawaada maqaalka loo cusub aad aad maastiin intaan muuqaalka guda galin waxaan rabaa inaan mahad celiyo dhammaan asxaabtii u soo beertay bariyahan dambe oo subscribe ii saaray channelka soo booqday oo haddana gambaleelkana furtay waxaan leeyahay aad ay u maastiin waan ka mahad celinayaa inta cusub ee hadda bacdi channelka arki doontana waxaan ii leeyahay idinkana soo dhawaada ku soo dhawaada channelkayga subscribe kana ii saara si markaas ay ula socotiin waxyaalaha soo gudbinayo waxa laga yaabaa inay waxyaalaha soo gudbinayo ku noqdaan waxyaalaha ka faa'iidid marka waxaan leeyahay soo dhawaada aad u maastiin gaas soo dhawaada muuqaalkayga cusub muuqaalkan sax soo aragteenba title-ka qoraal ku qoran sax soo aragteenba waxaan ka leeynaa barambagaadaha iyo beenta la wareejinayo YouTube-ka Instagram-ka YouTube-ka iyo maxaa TikTok-ka beenta la wareejinayo oo haddana laga been amuuranayo dad family meel degan dada waxay soo qaateen ama ay leeyihiin ama social media ay ku soo baahiyeen family markaas kamid ah familada YouTube-ka isticmaala ama YouTuber kamid ah YouTuberada isticmaala YouTuberada Soomaaliyeed inay leeyihiin isaga iyo xaaskiisa way kala tageen waxaaba u maleysaaba dad la degan guriga inay yihiin waxa u maleysaa qolkii degan yihiin qolka ka soo horjeeda dad degan inay yihiin okay maxaa cadeen u haysaa hadii inay kala tageen su'aasha aan weydiinay dadkaas waxay tahay maxaa cadeen u hayseen waxaad adduunka ugu xun waxaad adi hubin inaad sheegtid qofka bini aadanka waxa la rabaa markuu wax sheegayo ama uu dad wax u soo gudbinayo wuxuu isaga u og yahay xogtiisa inuu soo gudbiyo dadka qaarkood ayaa waxay leeyihiin CK xaaskiisii lacag ka haday bal ceebtaas fiirlah ku dhaashi dadka la ceebeysanayo fiirlah ku dhaashi dadka qaar waxay leeyihiin CK xaaskiisii way kala tageen qaar waxay leeyihiin si xun u hadlayaan waxaasna sharaf ma aha waxa kaloo ayaan darro ah inaad ku mashquulsid qoysaska in lagu mashquulana waa arrin aad foolxun talabaad ee soo artay waxay tahay dad baa waxay sameeyaan dadka dabagal ku ah qof baa wuxuu sameynaa sawir meel ka saaraya ama qof sawir meel kala degaya ama waxyaaluhu jeclaysan xaaskiisii hadda ka soo qaadtiikii xaaskiisii yani hadduu soo jeclaysan inuu xaaskiisa sawiradeeda ay baraha bulshada ku jiraan sida Instagram-ka YouTube-ka inuu video ugu jiro qofka saa joos kale waa xaaskiisii waa xalaashiisii iska kaliya ayaa iska leh ma ahan dadka inay leeyihiin marka waxa jisaasay tahay qof baa ugu leeyahay xaaskiisa telefoon ka saaray Instagram-ki wuxuu ka saaray maxallahay YouTube-ki wuxuu ka saaray meelaas dhan ka saaray kuleeyay isaga iskale ma ku haystaa adi ma ku haystaa xaaskiis ma ku haystaa adiga hadduu xaaskiisii uu sala jeclay social media soo geliyo ama uu soo jeclaan inay social media ku sii jirto adiga ma ku haysataa adaa ku haystaa ma ku haysan kartid because waa xaaskiisii waa xilihiisii waa xalaashiisii ma dhacayso inaad ka hadashid arrimo aad qusaynin ama arrimo qoys ku yaala qof jecel ma jirto xaaskiisa markaas in social media ka soo muuqato qof jecel ma jiro sababtoo qof kasta isaga jecel waxyaalaha noloshiisa isaga ka og wuxuu sameeynaa noloshiisa u khaaska ah marka dadka qaarkood ee social media soo gelinaya waxyaale aysan hubin waxyaale aysan makraati aysan u haynin waxyaalaha ay fiis ku raadinayaan wax qaldan waay ru'aantii waxa qalad ah inaad soo gudbiso waxyaalaha aadan cadeynteedii makraati intaba aadan u haynin inaad social media soo gelisid talabaad hadii kala tageen xataa yaa xagee ka haystaa inay kala tageen ma YouTube-ka la soo dhigay ma afkiisa ka haysiin ma ida afkeeda ka haysiin ma waxaad maqasheena ma waxaad soo ogaateena intaba ma ahan laakiin waxaan arkayaa dadka inay leeyihiin waa kala tageen waa isdagaaleen dhibaatadaas jirta xaqiiqadana wax ilaa hadda haya ma jiraan marka waxay ilaa social media saas looma isticmaalo ciidaha islaameed laguma dhegdhego waxyaalaha khalad ku keena waa laga fiican yahay يعني قفك إنه وحياله كلا لا إماده استجد ضد كتالتي سا أما ضد أوسو قد بيو حياله في عن أما قصة إيش اعتراء هيا لوبة هاي
laakiin ma ahan in lagu laabto qoysaska dadka xaasaska dadka familiga in la dhex galo in la dhowsaasaa jirta ninkan uu jeclaan kara xaaskiisu meesha inuu kaa baxo of course waa xilihiisii laakiin in aad dibagal kusii samaysiin ama aad tirahdin waxyaala noocaasa jira waa laga fiican yahay hunguriga aad cunaysid si qaldan lagu raadiyana waa wax qaldan marka waxaan dhihi lahaa run ahaantii dadkan inta badan social media isticmaalayo oo haddana sida qaldan u isticmaalayo social media saas ma ahan waxaa loogu talagalay inaad la imaadid wax aad dadka usoo gudbisid waxaa loogu talagalay talentiga adiga aad leedahay inaad la soo istaagtid meeshan haddii aadan talent lahayn waxay imaanaysaa inaad dadka aflagaadisid inaad dadka caysid inaad dadka waxaysa een aad ka sheegtid inaad dadka dhibaataysid ayaa hadhowta imaanaysaa taasna sharaf ma ahan sharaf ma imaanayso sababtoo ah haddii aad maalin kasta dad qof been aad ka sheegtid yacni waa bene haddaad been ka sheegtid dad waxaysa een aad ka sheegtid taas waxay imaanaysaa inaad tahay adigu qof beenlow ah inaad tahay qof dadka ceebihiis dabagal inaad tahay inaad tahay qof mar kasta dadka ceebahooda ka sheekeeya waxyaalaha aanan fiicnayn soo warna soo dabinayo mana fiicna laakiin baalkan social media lahayo ama social media qaasatan youtube-ka wuxuu ku fiican inaad la imaatid adigu waxaad hubtid adiga waxaad micnaha talent u leedahay fikrad adiga aad leedahay inaad la imaatid laakiin haddii aad ka warantid xaafado kaba soo qaad Malaysia qoysaska ku nool youtubera laba beri ay maqnaanayaan 3 beri youtube ka maqnaanayaan haddii inta soo fariiso dhaho youtube gabadhaas wiilkaas way kala tageen qoyskaas saas ku dhaxdhacday beena waxaan aan ka umana ma jiro cadeena uma haayo waxaan ka umana ma lahan waana wax iska malaawaan marka arrimahaas camal ayaa ku soo batay marka dadkaan dhahaaya CK iyo xaaskiisii way kala tageen dadkaan dhahaaya social media iyo sawirada ka saaray dadkaan dhahaaya xaaskiisii lacag ka hadlay ilaahay baa ay ku dhaarshay xag keenteen waxaas hadaa ay weydiiyay xag keenteen yaa igii sheegay qoys dhisan oo hadda dhisan maxaartina kala goosin ma qoys dhisan ayaa been ka sheegaysiin ma wax aad la imaateen ayaad weydiin ileen waxaan wax lala imaado u baahan yahay in wax lala imaado youtube u baahan yahay youtube macnaheedu loo furo ma aha inaad dadka daba gashid inaad dadka ceebadooda daba gashid ma aha waxaa lagu dhahay wax adiga aa hubta la imow laakiin inaad ma ahan aad waxyaalo aadan hubin waxyaalo aadan maaragtay dadka kaa asmacaynin waxyaalo dadkan ay fahansan yihiin inaad la soo istaagtid waa arrin aada xun xaaskiisii way kala tageen lacagay ka hadday way xiran tahay social media ka saaray saas waaye bababa yaa ii sheegay beentas tale waxaad soo gashay youtube-ka ayaa weyday ugu dambeyntii yani waxaan rabaa muuqaalkana ku dheeraada ma rabo muuqaalkana kusii dheeraadana ma rabo waxaan dhihi lahaa dadka social media si qaldan u isticmaala dadka walaalkood beenta ka sheegaya dadka rabaa cidaha degan oo faamilka inay hadda war beena ka tabiyaan dadka raba inay maaragtay qofka haddaad raadinaysid ama nacab gooni u qabtid si kale caadi ah usoo mar laakiin inaad xaafadda iyo xaasaska iyo haweenka iyo waxaa qalad meelaas maaragtay been la iskaga sheego waana arrin aada fooxul runaantii boqolka inta kusoo gabagabeynaya